qaybta labaad ayaan hadda guda galaynaa soo dhawaada asxaabta ila socota qofka xiga ayaan rabaa marka in aan la xiri xaawo qadka ayaa ku jirta Soomaa xaawo soo dhaw xaawo assalaamu calaykum calaykum salaam xaawo arintan adigana goorma ayay kugu bilaabatay sidaasa aad ku ogaatay in lacagahaadii state-ka ee tax return-ka la goosanayo 2021 aan malaynaya aniga sidoo kaleeto qofka lacagta ugu horreysay iga goosteen waxay 2022 iga goosteen marka waa gartay 2021 iyo 2020 adigu saas weeyaan waa isla meelaha maaha inaga waa gartay carruurta lagu diiwaangeliyay adigana imisay dhamaayeen afar carruur waa gartay marka anigoo maaragtay gobolka laba joogna ayaa waxaan noogu soo garaacay guriga ayaa waxaan noogu soo garaacay iyalkani aniga iska joogno maqrib ay tahay afarada meelahaas waa guriga ku garaacay markaas aniga waxaan deganahay magaalada meel aad guriga aadiga ayaa lagu soo garaacay marka lagu soo garaacay waa ka waa fiirinay laba nin baa taagan oo mid uu khamiis qabo ayaa taagan way noo soo galeen jimcaha galabna ay helin kalmaaqaan gorgal u heer marka way nagu soo garaaceen markaas waa fiirinay Soomaali waa wiilal Soomaaliya oo warqada gacanta ku wato waan ka furnay iyo markaas waxay la dhaheen walaalo waxaanu nahay umad Soomaaliya waxaanu sameynaynaa bay dhaheen waxaanu wadnaa waxbarasho carruurta maadaama corona ku dhacay laga sano soo hayay ama ilaa markaas wax soo hayay marka dhibaato ciyaalka ay ku dhacday oo carruurta hoos u dhaceen dowladda ayaa waxay ogolaatay lacag oo carruurta waxbarasho loogu maaragtay kor loogu soo qaaday ayaa state-ka weliba ay dhahayaan ayaa maaragtay ogolaatay marka dadka danyarta ah oo weliba maaragtay dadka biyo badan aan samaynin ayaa weliba loo ogolaaday marka sidaas ayaan maaragtay ummadda ku sheegaynaa walaalo carruurta ku joogaan haabaan ku afar carruur ay jooga marka waxay dowladda ogolaatay waxay maaragtay sidaasaan u taaga marka inaanu heer fiican oo waxbarasho aan ku marka aan ka dhaxgala xaawo aan ka dhaxgalo marka isla maalintaasi ay gurigaada kugu soo garaacayaan miyay carruurta ku diiwaan geliyeen mase meel bay kugu la ballameen oo maalin kale ayaad u geysay markii ay igu soo garaaceen carruurta isla maalintaas aan carruurta siiyahaa isla markii baa siiyahaa oo halkaa gurigaaday ku diiwaan geliyeen guriga ku diiwaan geliyeen xaafadda guriga waan ka furay way soo fariisteen laba kursi meesha u dhigay guriga qolqol banaanka u ahaa laba kursi meesha u dhigay halkaas ka diiwaan geliyeen marka ma tuushinka carruurta iyagoo guriga joogay kombiyuutar u keeneen oo halka ayaa wax laga barayay mase meel la geynayaa jirtay carruurta oo tuushinka lagu soo siinay maalinta ku xigtayna waxay keeneen kombiyuutar ay keeneen oo saddex kombiyuutar ay keeneen waxay dhaheen ciyaalka laptopyo ciyaalka koosan ay ka soo gelayaan marka saas waaye marka carruurta magacyadooda iga qorteen iyo maaragtay saas social security camalkayga iga qorteen waxay ugu dhaheen kasoo walaalo maxaa dhacay maanta shaqeeya sida maxaad shaqeeyada u qoranaysaan oo haddii waa inaan dowladda maadaama ay dowladda annaga wax ka doonanayno oo annagana loo ogol yahay inaan maaragtay dowladda annagana caawina waxbarashadii nagu caawinayso inaan carruurta wax barnay وين ساشرين قرنا ساشرين ساسي وقتين marka waxay idin sheegeen tuushinkan inuu free yahay hadana informationka carruurta ay idin ka qaateen markaas kadib dawladda gobolka ay ku biilgareysteen waxay yiraahdeen intaas oo qof ayaan tuushin free ah siinay sidaas ayaa marka lacagta la idin ka jarayay dadkiinan carruurta lahaa Soomaa waa sida saas way waa gartay marka ma qasan lacagtooda ka maqan adiga marka hadda waxay ka maqan 2022 iyo 2023 maxay dhantahay lacagta ka maqan marka adiga hadii aad isku darto waxay ka maqan 4,000 oo meel ah iyo 8,000 oo meel oo marka dhamaantood ba lagu yiri lacagtaasi deyn lagu lahaa waaye oo tuition free carruurtaada lagu siiyay waxay leeyihiin dawladda deyn baa lagu bixiyay lacagtaas oo carruurtaada waxbarasho aad geysay
ilaa meeqa meelood aad tagtay markii aad ka dacwootay IRS-ta xaggee kaloo tagteen oo dacwadan ka gudbiseen oo sideeba ku ogaateen horta lacagtan in dadkaasi ay ka qaateen waxaan ku ogaaday 2022 markii aan waayay 2023 oo dhan oo office state ayaan inta badan markasta wadaagay waan tagayay waxa la yidhaahayay lacagtaada processka ayay ku jirtaa weli waxaa liiga sheegin in iyagu la qaatay markii dambe oo tii dambe sidaa usugay markaan ka samray ayaan tii dambe marka hadda xareeyey ayaan maalin u tagay waxaan ku yiri oo hadda beriga soo dhaafay maxaa ku dhacay maan ku yiri lacagteydii lasoo yeerka horeeto waa sugayey waa ugu dhan lacagtaas deyntaas ayaa lagu bixiyey tanna way qaadanayaan oo lagu bixinayaa oo anaga lacagta stateka ayaa marka hore lacagta deyn shubay oo iyaga siiyey marka stateka lacagtaan kule waa gartay marka sideed ku ogaatay arrintan inaysan kaliya ku saameynin oo dad fara badan oo Soomaaliyeed xitaa dad kale oo ajnabi oo Carab iyo Eritrean iyo Ethiopian isugu jira ayaa ugu maqaalaa sida qaar kamid ah adika ay sheegteen inay saameysay marka sidee ku ogaatay inaysan ahayn kaliya qofka Soomaaliya oo arrintaas saameysay qoysaskan kale sida isku heshay markii aan stateka aan tagnay oo anigu aan tago markasta waxay la soo istaagayaa saddex qof ama laba qof ama koox bay la soo istaagaysa dad oo raadinayso iyagana dacwada markii aan iswareysano oo banaanka intaa fadhinaa iswareysanayno dacwada maxaa socotaan sidaan oo kale iyagana ku dhacday hataa odayaal niman baa ku jira Soomaaliya oo iyagana dhibaatadaas ku dhacday waa iyaga markay la soo istaagayay iyagana dacwoonayay oo dacwada lacagtaas socda waa xaqooda oo been loo sheegay wata xaawa aad baa u mahadsan tahay Quraysho ayaan soo dhaweynayaa markan Quraysho soo dhawo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته علم واري وعليكم السلام قريشو أدينا قرما أي أرنتن كوجو باللعبتي سديس كوجو باللعبتي بلنا لو ذا والله واحد يقول باللعبتي معي ماما كم إذا أنا جو نوت ونفور جوجا أيام يمكن قبل ورقة ورقة لا الفرية أيام وتاي تكسر كل دليل يدو كله وأنا أقدر أيام واحد كل تور الكفرية أول عليه ومركزين بكيسي وسوسة وأنا حل ما حل جاس واسنة كي وانا توانتوغي واقرتي هورانتيسي برتميهيسي دمادكيسي وقتيجه برتميهيسي مكي عن بوتسينا تكسيغا توانتوغي توانوانكي تكسيغيسي مكا بوتسيني ايان قبض يا ايشا كقبض مكا لما كيسيسي عنيقا وعدني ديال بان وعدي شقينا ويقا قبطي وحي يقول ديال بان ماذا عني قبض كوا حتى إلا فدقا ايا ايوه تبني ولما توان بقناستر تبني بان وتبني aruurtina waan sii kaxaysanay walaashan iyo afar way kaxaysatay ana saddex baan daboon kaxaystay sidiiba ciyaarkii interview ka qaaday waa wiilkii yar ah waa gartay fax baa loo dhanayay Soomaali macay fax baa loo hadii markuu interview ka qaaday aruurtii wuxuu qof waliba meeshuu fadhiisanaya anaga fadhiisanayna computer ma u baahantiin ma uma baahnin baan ku iskuulada laga siiyay karooni baan haysanaa sidiiba aan soo noqonay sharciyada yadiibu naga qaatay taksiyada yadiibu wankii taksiyada dabadoodii keenu nagu waa u diidnay naga dhamaystiray su-aal baan markaa yarka weydiiyey waxaan ku yidhi habar yar arrintan imkaad iga diiwaangelinta sharciyadada u qaadatay hadhowta wax may saameynayaan mayaguulo dowladdaana siinaysa ninkana wixii soo waa gartay oo markii horeba su-aashaas sii weydiisay isla maalintii ay caruurta diiwaan gelinayeen aniga weydiiyay su'aasha waan weydiiyay waxaan ku yidhi dhibtan sharciyadan iyo waxaan naga wada diiwaangelisay iyo sharcigeeda magacyada qaadatay waxbay naga soo gaareen maygu yidhi waa free dowladdaana naftiinaysa shaqana kuma leh waa gartay wuxuu nagu dhahay loo ikamkoogu hoos yahay ilaa 30 hoos uga yara 30 kuma sanadkii keena waa gartay sidii baan ku aaminay sidii baan cilmi uga soo baxnay waan iska soo weynay sidii waxa arkaba warqad duunayso iyaga ka socotaa 2023ga bishii 12aad ayay soo dhacday waa gartay oo lacag 3000 ku qoran tahay $3,000 waa gartay oo leeyahay qoladana wax ku dhigtay ilmahaaga caynkan waan la warqad waan la arrin wiilkii taxiga ay xiranayaan la tagay waa gartay wiilkii wuxuu igu yiri warqadan dad badan bay ku dhacday ku dhacday waa ina taxiga la raaciyo taxiga la waa gartay waqadii sidii baan taxiga u raaciyo ku daray haye lacagtii waxaan sugaba state-ka warqadii soo diray waa gartay goorma ku soo diray state-ka warqada state-kuna bishii sanadkan bilowgiisii buu soo diray waxaan taxiga suga diray sanadka bishii saddexaad meelahaas isaguna soo diray waa gartay 124 kan
warqadii waan eegay waan lacag taxiga loo noqdo kana la soo diray inuu yiri waa barfeystaan gelinaa lambaraan ugu wacay waxba waan waayay marka gabdhaha walaalaha iyo mid waliba dhinacyadana uu ooyso ka bixsano 2 sano 1 sano mid waliba dhinac ku dhacdo isla wada yaabana meel isku wada kulanay waa tahay lacagta ka maqan marka 2 sano adiga 2022 iyo 2023 maxay dhan tahay oo state-ku uu ka qaato yiri waa deyn lagu lahaa maxay dhan tahay aniga saddex isku wada geyn hadda 5,800 ayda maqan waa gartay marka gabdhahana kulanteen saddex kun yaa marka ay ka goosanayaan bay yiraahdeen waan wacay laba jeer baan ku noqday waxay yiraahdeen professor ku jirtaa markuu dambeyntii way korteen bay yiraahdeen baaqigana waan ku soo wali baaqigana ma hayo waa gartay marka saasa cilmiga oo nala dhacay waxyaabahan kale ee aad ila yaabay intii telefoonkiisii uu baloogtay meel aan kala xiriiro waan waayay gabdhahan wiilasha ay sheegana ma garanayo dadkii marka idin diiwaan galiyay arrintan oo idin sameeyay telefonadoodii dhanba way bedeleen oo meel kala xiriirtaan ma laha anigu waan waayay meel kala xiriiro ma hayo hadii garanayo waa tan cadaana waa gartay hadda warqadan ofiska la iga soo diray ofiska ilmahayga ku diiwaan galiyay markaan tagay isku shaqo maaha taan socdo warqad markii la iga soo diraan tagay waa gartay waxaan ku yiri ilmahayga sharcigiisa iyo taariikhda maxay idin keenay haye waxay ugu dhaheen aan ku caawinayna naagta warqadii la iga qaaday naag cadaan meesha ugu tagay koobiye ka qaadatay kuwii steesiyo kuwa iyagu bay soo direen sidii adu way la sabireen way la hadleen wax ka cilmi aan ku sheegno cad ma hayno waxayna stop and ilmihii inay xataa 2023 caawinayaan ayaa emailkayga la iga soo shubay oo weli ay ba arrintii socoto oo la leeyahay caruurtii waa la caawinaya waxay iga daran cilmiyow waxaan gabdhahan warqadaha dadka nala dilgaraynaya noo soo diraya maba garanaynaba waan yaabanahay waxay emailka iigu soo direen inay 2023 ilmahayga caawinayeen hebelow magac Soomaaliya wata ani waxaan indhaha saarayaaba waa dumar tan caqaariye naag madow waxaas ay la hadlayaan wax Soomaaliya indhaha ma saarayo waa Soomaalida taa noo gacan وانا magacyadooda bay wataan waa tahay aad ma hasan tahay in Quraysho waa kaaga mahad celinaya qofka ugu dambeeyo raaxo miya mise waa Sawdo ina kalina way la fadhiyo dadka taagada waa gartay okay raaxo soo dhawow assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh walaal magacaygu waa Raaxo Xuseen raaxo arrintan goorma kugu bilaabatay adigana walaal aniga waxay ugu bilaabatay 2023 waa gartay oo sanadkii hadda dhamaaday ها وقرت إذا الجوجي ماذا أنت نكو قاتو لجود عروت هذا لودي وانجليه ولا لو وحي كوي ما تكبر أو فرقنا هاي أو سكمرك شقيني لبان مالين أنا هو تورن كذا هالليل أنا إدميك تورن العقب بنجيسني تورن عاد بي أدي ترين كقبل ما شاك مالن سكوا كأنك مركز ترينا أنا كوحان هلا راح أو جرا تور فريئة وويل سومالي كودي كيان أو فريئة وقرت أمه بتاري فري ها waa free oo aniga hadda sanadka waan dhigtay haddana way ii socdaan ilmahayga halkaas bay iigu dhigtaan bay tiri waa gartay markaas xirta walaal anagu waan rabaa iigu xir gabadhi sidii way iigu xirto wiil yar oo ay turis ka socda oo aadan la dhaho wiil ilmaha yar oo adiga ilmaha 324 meelahaas ma warqada u wadwaday wiilkii way iigu xirta haye wiilka wuxuu yiri habar guriga kugu imaanay adresskaaga isii maalin sareeday aan balmiyay gurigu igu imaado adres wixii buu ii sharaxa imise caruuraha lagu diiwaan galiyay marka adiga intuu shika freega lagu seenay labo mid hair star oo hada iska caruur oo xabba waxaan dhatan way hair star midna waa third grade waa gartay adiga wixii buu iga qorqortay marka waxaan ku yiri habar yar maxay social u weydiiyay socialada caruurta u weydiiyay حفر هبو محاش شلة عرفت محك كرت تبا فري بعد ليه هاي وأنا واش كي مقرنسا مركز ويري هبو وحبيدين كأن رجما ربو أول وحن ويد سنين الدولة ده تتكلم إن كم كارلون لوجو ترجعي أو تاكسي أي شقة أي سنة تسوى حريان صدق كن خاص كأ باللوجو ترجع وقرت وحي صدق كن خير سنة كيس سماية
ها واقرتي marka habo wax ad laga goosanay ma jiro hadaa inta sameeynin taxi sanadkaas aad sameeyana waan tusiyo warqada keen u dhahay wixii uu arkay marka shir habo adoo kala loogu talagalay waxa tahay dadka eligible ka wax ha واقرتي sidii baan walaala sharciyada ku siiyay hadii gabadha waa heer star ay ahayd ba kuna taad garido ahaa adi meeshii isfahan la'aan baa ka dhacday ilmihii waxba fahmin qof aan fahmayno meesha soo galay marka adi bil iyo bar ay ilmihii dhigana ay meeshii noo soo galayaan baan maalinka dambe marka meeqa maalmooda carruurta loo soo gali jiray marka waxaa loo soo gali jiray sabti axad waa garta labadaasi maalmood dhammaantiin waa ka simantiin miya arrintaasi labada maalmood sabtida iyo axadda hablaha ku jira qadka dhammaantiin sabti iyo axad ay ahayd miya dadku way kala duwanaayeen miya kuwa maalmo gooni ay ahaayeen okay raaxa ku soco marka ana sabti iyo axadda si soo gali jireen marka maalinka dambe waxaan ku yiri walaalo waxaan rabaa inaan waxaan iga istaagarisiin oo iga joojisiin baan u baahanaa ku yiri uma baahniba waa gartay sheeko oo xanxanna waan soo maqlay oo sanadkii hore 2022 dad ku dhacaan soo arkay waa gartay oo in dad lacag laga qaatay aad maqashay waa gartay waan u sheegay waxaan ku yiri walaalo labada bilood baan idin bil iyo bar bay ahayd baan dhigtama iri haddan uma baahni بليس waxaan rabaa inaad iga xirtiin baan rabaa ma iri waa gartay maxay ku yiraahdeen wiilkii wuxuu ugu xiray Aydruskii wiilkii yaraa wuxuu ugu xiray Aydruskii weynaa waxa hagayba meesha laga soo duulay kii lahaaba buu ugu xiray waa gartay Aydruskaan u sheegay waxaan ku yiri walaalo waxaan rabaa inaad iga xirtid aniga ma rabo inaan wax hadal kala waan ku yiri waxaan rabaa inaan safar u baxaan rabaa ma iri waa gartay oo inaad iga joojiso baan rabaa iga xirtid ma iri waa gartay wuxuu yiri already waxaan qoranaa 3 bilood 2 bilood already ani 2 bilood waan bil garaysto state ka u dirsaday okay waa gartay ilaa wuxuu ii dabageliyay wax ku soo raaci doona ma lahan markaan adiga ku dirnay meel iska soo baarajisto available uma aan noqonin ba adiga waa gartay oo maba waxba laguma soo raacanayo هذا حلو ما صار على لقمة وسوى بروفين بقى. واقرت بروف مو بهلين بقى. أي واحد ورقة ولا قصة دسندون ما تشت لا الله حتى ورقة كو إماتو. وفاعنا يسا ما كثر عيسو كتب العقل يا ما قصنا يوجد. واقرت مركز تاكس ريتان كذي مركز حريسة هذا السنة كده ما هذا يوم مهراتي سنة كان هذا حريسة محل عقه ولا قاعد جرت ما غل عقها كام غل. ولا لو حقيقة ما قال عق شن كون سديد بقول يلي حذا. واقرت. ugu dambeyntii waa soo gabagabaynaynaa adinkoo raalli ah dhammaantiin maadaama hadda aad qoysas fara badan tihiin oo aad ishasheen looyarkiina uu idinku yiri gooni ha u soconin adinkoo gruuba ii imaada dad fara badan oo arrintan ay ku dhacdaa ii yimid ma jiraa marka hadda wax looyar ah oo dhammaantiin aad ku midaysan tihiin oo aad qabsateen si lacagihiinni dib laydinku soo celiyo cilmi oo anigu ku jawaabiya lawyer waa jira waraaq noo qoray oo state-ka noogu diray laakiin weli aan maanu hayr garaysan laakiin lawyerkaas ilaahay dartiis uu nagu caawinayaa waayo maalin walba tanaayar oo inaysa u timaado qaylinayso xabba xaashir wadata lawyerkuna waa cadaan may cadaan ma waqaf muslina wuxuu dhahay ilaahay dartiis uu nagu caawinayaa xaashadaas ay dirayaa ka bacdi lawyer qabsanaysay waraaq noo qoray state-ka noogu diray marka hadda waa midaysantiin qoysaska hadda aad ishasheen oo Soomaali midaysannahay absolute maanta ugu dambeysay 5 qof oo kala soo helnay oo dadka gabdhaha groupka ay keeneen group baan haysanaa meeqa dhantiin marka isku darkiina qoysaska arrintan aysan 29 qof qoys baan nahay waa tahay aad iyo aad weliba la iska soo tabadhacayade oo weliba dad ay ku soo biirayaan groupka maalin kastaba dad cusub aad helaysaan dad cusmaan gabadha xaawa hadda ku laadaysa 5 qoys oo maaragtay kale ay keentay marka ugu dambeyntii arrintii marka weli carruurtiinni ma ku socotaa oo mase sanadkan hadda 2024 ka waa iska wada xirteen mase weli arrintii waa ay socotaa ku socotaa maya
may cilmi oo ninka biilka ka qaataan oo biil gareyn jiray oo hay'adan ay hoos fadhiday maaragtay oo state-ka fadhida ayaa hodan xasan oo representative-ka noo fadhida ayaa la hadashay oo kiiskayga u gudbisay wuxuuna noo sheegay September in kiiska la xiray oo nimankan biilka laga joojiyay laakiin wixii hore ay computer-ka gashtaan ay weli sanadkan ay naga jiranayaan okay oo weli ay biil gareysanayaan laakiin September sanadkii hore 2023 yaa laga xiray state-ku lacagtii uu siin jiray ka xiray kiiska waa laga xiray laakiin dhankayaga waxba kama sheegi karno anagoo 5 qof oo maalin u tagnay oo intaan gabdhahan isla kulmin oo hodan xafiiskeeda ku kulanay xaashiya hodan noo gudbisay oo ay nacaawiso waxay noo geysay ninkii iyaga biilka state-ka ninka u fadhiyo biilka siinay nimankan hay'adda u gudbisay wuxuu noo sheegay kiiskayga inuu kiiskooda la xiray nimankaas waxba biil gareysanaya next year waa tahay aad iyo aad u mahadsantihiin insha Allah haddii wax kale ay soo kordhaana waan idila soo xiriiri doonaa waan ka xumahay waxyaabaha idinku dhacay waxaan rajaynayaa in dacwadiina aad ku guuleysataan lacagihiina aad dib u heshaan waa idin mahad celinayaa dhammaantiin mahadsanideen Thank you.